Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal meel kasta oo aad joogtaanba, waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa warbixin kooban oo ku saabsan dalka Qatar. Dalka Qatar waa dal Carbeed waxa uuna ku yaalaa galbeedka qaaradda Aasiya. Dalka Qatar waxa uu xuduud la leeyahay wadamada Sacuudiga iyo Baxrayn. Wadankan waxa ku hareeraysan gacan biyoodka Bershiya iyo gacanka Qatar. Tirada dadka Qatar waxaa lagu qiyaasaa 2,641,669 qof. Bedka dalka Qatar waa 11,571 kiilomitir laba jibaaran. Wadankan waxa uu madax-bannaanidiisa ka qaatay gumeystihii Ingiriiska taariikhdu markii ay ahayd 3 bishii Sebtembar 1971. Wadankan waxa uu ka kooban yahay 7 gobol. Caasimadda wadankan waxaa la yiraahdaa Doha, waana magaalada ugu weyn uguna dhaqaalaha badan wadanka. Dhaqaalaha wadankan waxa uu ku tiirsan yahay shidaalka, waxaana maalintii ceelasha shidaalka Qatar laga soo saaraa 15 bilyan barmiil oo shidaal ah. Heerka shaqo la'aanta wadankan waxaa lagu qiyaasaa wax ka yar 1%. Luqadda wadankan looga hadlo waa afka Carabiga. Dalka Qatar waa dal haysta diinta Islaamka. Lacagta wadankan laga isticmaalo waxaa loo yaqaanaa riyaal. Gawaarida waxay iska baasaan dhanka midig. Furaha dalka waa #947. Daawadayaal waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe ku samee si aad u hesho warbixinadeena. Mahadsanid.